dowladda Mareykanka ayaa weysay basaasiin badan oo ku kala sugnaa caalamka sanadihii dhawaa waxaa sidaasi lagu sheegay warbixin muhiim ah oo la daabacay. Hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa fariin sir ah oo culus u dirtay xarumaha ay ku leedahay caalamka iyo saldhigyo, taasi oo ay ku sheegtay in jaajuusiin badan oo laga qoray dalal kale si ay ugu basaasaan Mareykanka la qabtay, la dilay ama xogtooda la ogaaday, sida uu daabacay wargeyska New York Times oo soo xigtay dad xoogaal u ah arrinta tan. Fariintan ayaa iftiiminaysa dhibaatada ay hay'adda sirdoonka ka marayso qorista basaasiin dunida ku kala sugan ayna wajahayso xaalad adag ayaa lagu yiri warbixinta New York Times. Fariinta CIA ayaa sidoo kale lagu sheegay in hay'adaha sirdoonka dalal ay ku jiraan China, Iran, Pakistan iyo Russia ay ugaarsi ku hayaan basaasiinta Mareykanka oo ay xitaa qaarkood u rogayaan laba wajiilayaal. Xaqiiqda ah in ay tiro basaasiin ay si fudud ku ogaadeen dalalka caalamka ayaa xasarad ka dhex abuurtay CIA. Hay'adda ayaa sheegtay in ayada oo tiknoolajiyadda caalamka ay horumar samaynayso ay fudeed noqotay in la aqoonsado basaasiinteeda. Dhinaca kale, warbixinta ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu dib uga dhacay ururinta sirdoonka dalalka cadowga loo arko sababo la xiriira in 20kii sano ee tegay uu diiradda saarayay la dagaalanka argagixisada. Fariinta ayaa sidoo kale tustay dhibaatooyinka kale oo ay CIA wajahayso ay ka mid yihiin shaqo xumo, inay si fudud isaga aaminto xog ogaalkeeda, inay fududaysato awoodda sirdoonka dalalka kale iyo inay si fudud u qorato sirdoonka ayada oo aan dareen ku bixin halista ka hortagga sirdoon. New York Times ayaa sidoo kale sheegtay in saraakiisha ka shaqeeya kiisaska ee CIA mararka qaar lagu dallacsiiyo qorista basaasiin cusub ayada oo aan dib loo eegin guusha ay soo hayaan sirdoonka ay qoreen, taasi oo dhalisay in la qoro dad aan tayo wanaagsanayn.